tartanka murashaxiinta gudoomiyaha baarlamaanka waxaa isugu soo haray 4 musharax oo kala ah Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari, Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdifataax Maxamed Geesay iyo Idris Cabdi Dhakhtar. Musharaxiintaas waxa ay ku soo bixi doonaan tartanka ugu dambeeya qofka noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya. Haddaba xubnahaas ama musharaxiintaas mid ayaan u galeynaa taariikhda noloshii inta ay la soo martay. waxaan ku hormaraynaa Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari. Jawaari waxa uu dhashay 1945 waxaanu ku dhashay degmada Afgooye. waxa uu soo noqday dawladdii dhexe ee ciidanka wasiir oo ka soo noqday wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, wasaaradda arrimaha bulshada. sidoo kale wuxuu soo noqday wasiir ku xigeen waxaana uu mar agaasimo ka ahaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, isagoo ka hor xilligaasna macallin xagga waxbarashada muddo soo ahaa. 2007 waxa uu ka mid noqday dadka ka shaqeeya xafiiska qaramada midoobay gaar ahaan la talinta dhanka shuruucda, waxaana uu ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu lugta lahaa gudoomiyena marka ahaa raggii diyaarinayay guddiga waa dastuurka qabi qoraalka ee hadda Soomaaliya. 28 bishii 8 2012 waxaa loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka sagaalaad ilaa 2016 ayuu soo gaarsiiyay. Jawaari waxaa lagu xantaa inuu yahay nin siyaasadiisu tahay mid dhexdhexaad ah, siyaasadaha iyo inta badan fikradaha kala duwan ee siyaasadana aysan wax saameyn ku lahayn. waxaana uu ka mid yahay waliba murashaxiinta hadda ugu cadcad ee xilkan isu soo taagay. musharaxa labaad ee jagadan u taagan gudoomiyaha baarlamaanka waa Cabdirashiid Maxamed Xidig. waxa uu dhashay 1960 waxa uu waxbarashada sare hoose iyo dhaxaba uga baxay degmada Afgooye. shahaadada koobaad ee waxbarashada waxa uu ku qaatay dalka Ingiriiska. si lamid ah jaamacadiisa labaadna halkaas ayuu ku dhameystay. 2004 ilaa 2016 wuxuu ahaa xildhibaan. waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda kala duwan. waxa uu wasiir ku xigeen ka soo noqday wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga, shaqada iyo shaqaalaha. sidoo kalena waxa uu soo noqday wasiiru dawle. Cabdirashiid Xidig waxaa la aaminsan yahay inuu ka yimid dhanka maamulka Jubbaland oo ah meesha markii hore uu ka soo baxay codkan uu ka soo helay. siyaasadda haddii uu ku soo baxo waxaa la odrasayaa wax badan in siyaasadda Soomaaliya iska bedelayaan, gaar ahaanna hanaanka wax qaybsiga ee muddooyinkii dambe lagu dhaqmayay, taasoo ahayd in madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ay wax badan aan u ekaa doonin sidii muddo badan lagu soo maamulayay, wax badanna isbedeli doonto. musharaxa saddexaad waa Cabdifataax Maxamed Geesay. 1968 ayuu ku dhashay magaalada Muqdisho, waxaana waxbarashadiisa inta badan uu ku dhameystay gudaha dalka, gaar ahaanna waxa uu ka baxay kulliyadii luqadaha iyo taariikhda ee jaamacadda La Foole, gaar ahaanna qaybta Carabiga. shaqo la yaqaan oo dhanka maamulka waxa uu ka soo shaqeeyay wasaaradda amniga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu marar kala duwan siyaabo kala duwan u maamulay. dhanka warbaahinta ayuu saameyn ku lahaa oo wuxuu mar ka mid ahaa milkiilayaashii idaacada ku yaala magaalada Baydhabo. waxa uu ka mid yahay dadka murashaxiinta ah ee hadda u tartamaya gudoomiyaha baarlamaanka. waxaa la aaminsan yahay in uu xulafaysi iyo gacan weynba ku leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan. Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa loo arkaa Cabdifataax Geesay in uu yahay murashax hadda muhiim u ah marka la fiiriyo tartanka doorashada ee gudoomiyaha baarlamaanka oo siyaasad ahaan dad badan ay rumaysan yihiin inuusan ku qanacsaneyn Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari. musharaxa afraad waa Idris Cabdi Dhakhtar oo dhashay 1965 kuna dhashay magaalada Baydhabo. waxa 1989 uu ka baxay jaamacadda La Foole, kulliyadda xanaanada xoolaha iyo daaqa. waxa uu muddo ka shaqeynayay hay'adaha caalamiga sida hay'adda UNICEF, World Vision iyo hay'ado kale oo badan. waa aasaasihii mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Bay. wax badan xagga siyaasadda laguma yaqaano oo waa ku cusub yahay. saameynta uu yeelan karo nooca ay tahana lama oga ilaa hadda. ma jirto cid si cad loo ogyahay oo dhinaca dambe ka taagan. waa murashax doonaya inuu ku soo baxo kursigan gudoomiyaha baarlamaanka.
afartaas musharax waxaa la filayaa in 11 bishan uu baarlamaanka Soomaaliya u kala doorto ninka hogaamin doona 4 sano ee soo socota waa qof ee nasiibkiis iyo waxa uu ku tashanayo